sanjay kabuur mid ka mid ah aktaradii ugu caansanaa Bollywoodka sagaashameeyadii kana mid ah aktarada aadka loo xiiseeyo aflaamtiisa waa walaalka ka yar jilaaga caanka ah Anil Kapoor waxaan idin wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah jilaagani balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaal ku soo biirto muuqaalka dadka shalaag inoo saar si share garay oo la wadaaga asxaabtaada Soomaalidu qaar xilligii shilmooyinka aad u xiisan jireen aflaamtiisa markaan eegna aktarkan wuxuu fanka Hindi ku soo biiray horaantii sagaashameeyadii ama sanadii 1995 waa 58 jir dhashay sanadii 1965 waa walaalka ka yar jilaaga caanka ah Anil Kapoor iyo sidoo kale soo saaraha caanka ah ee Boney Kapoor jilaagan markaan eegnana aflaamtiisa ugu caansan ee Soomaalidu qaar aad u xiiseeyaan waxaa kamid ah filimka caanka ah ee lagu magacaabo Sirfitum kaas oo la daawaday sanadii 1999 waana filimkiisa ugu horeeyay hogaamiye ka noqdo kaas oo guul gaaray saaxiibayaal laakiin markaan eegna aktarkan filimkiisa ugu horeeyay oo guul gaaray kana soo muuqdan waa filimka caanka ah Raja inkastoo uusan hogaamiye ka ahayn waxa filimkaas hogaamiye ka ahayd natiijada caanka ah Maduri Dixie waxaan la daawaday sanadii 1995 waana filimkiisa labaad oo uu sameeyay jilaagan markaan eegna jilaagan iyo aflaamtiisa kuwooda loogu jecel yahay ama Soomaalidu aad u xiiseeyaan daawashadooda waxaa kamid ah filimka caanka ah Awzar waxa filimkaas qayb ka ah jilaaga caanka ah Salman Khan waxa uu soo baxay sanadii 1997 natiijo aan falaba ayuu noqday sidoo kale aflaamta kale aad kala xiiseeyay jilaagan uu sameeyay waxa kamid ah filimka caanka ah Beqabu waxa qayb ka ah natiijada caanka ah Mumtaqul Karni natiijo aan falaba ayuu noqday aflaamta kale waxa kamid ah filimka caanka ah Zamir ee kala soo muuqatay natiijada caanka ah ee Shilba Shiti asigana natiijo aan waxa uu noqday filim disaster ama filim burburay filimka kale ama aflaamta kale aad kala xiiseeyay jilaagan uu sameeyay waxa kamid ah filimka jaceylka ah Muhabbat filimkaas waxa qayb ka ah natiijada caanka ah Maduri iyo sidoo kale aktarka caanka ah ee Akshay Khanna natiijo aan waxa uu noqday filim falaba saaxiibayaal markaan eegna jilaagan iyo sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay hal iyo laba ayaan idin kala wadaagi doonaa jilaagan iyo walaalkiisa ka weyn ninka lagu magacaabo Anil Kapoor waxay iskala soo muuqdeen hal filim kaas oo lagu magacaabo Mubarakan sidoo kale filimkaasina waxa qayb kala ah wiilka adeerka u yihiin ee Arjun Kapoor saaxiibayaal xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay jilaagan waxa kamid ah xalliyo oo taageer weyn u yahay natiijada caanka ah Maduri Dixie sidoo kale jilaaga caanka ah Amitabh Bachchan ama Cali Dheer waxa uu taqaanaba jilaagani xaqiiqada ugu dambaysa in kala wadaagi doono waxa weeyaan waxa leeyahay ninkan wuxuu fanka Hindi ku soo biiri lahaa dhamaadkii 80meeyadii laakiin nasiib xumo filimkiisa caanka ah Birim waxa la daawaday sanadii 1995 sababta loo daawadan waxay ahayd in dhowr jeer uu dib u dhacay ama delay uu ku dhacay filimkaas waxa la rabay in la daawado sanadii 1989 laakiin nasiib xumo dib ayuu u dhacay waxaana tiyaatarada Hindi la saaray sanadii 1995 jilaagan hadda inkastoo Bollywoodka wali uu ka tirsan yahay laakiin aflaamtiisa gaabis waay sanadii ugu dambeeyeen aflaamta uu ka soo muuqday waxa laga xusi karaa filimka caanka ah Moja Mangal oo Akshay Kumar hogaamiyaha ka ahaa natiijo aan noqdo filim super hit ama guul weyn gaara saaxiibayaal inkastoo jilaagan mar qaarkiisna dhankaasi TV series ama musalsaladana uu ka soo muuqdo saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeeyay xogtii xaqiiqooyinka ee dikala wadaaga jilaaga caanka ah Sanjay Kapoor fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar si share garay oo la wadaaga asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena